cabdisalaam ay weydiiyey muxuu uga baaqday garowe in ku filanaa jirto dadkuna hadda inay meel wada aadaan muhiim maaha dad ku filan oo madax iyo siyaasiyiin iyo mucaarad haddii la rabo haddii madax maamul goboleed la rabo haddii kuwii dowladda federaalka la rabo intii ku filan waa jirtaa in la wada aado meesha la buuxo dadka dhan ay jiraan muhiim maaha annaga waxaan rabaa idinka inaan la joogno ila hadalno dowladda aan waardiyeyno hadday xadgudub samaysaa u sheegno meesha inaan joognaan rabnaa dowladda isha ku hayno oo laga wada tegin goobta ayaa muhiima waa mahadsantihiin maxamed cali aan ku bilaabayaa wuxuu yidhi maxamed cali musharaxiinta ma cabsanayaan sidii gabdhaha loo xabadeeyey may ka baqayaan may soo baxaan su-aalna qabato waaye laakiin waxaan kugu bishaaraynayaa shirkeen inoogu dambeeyey ee golaha midooda musharaxiinta oo yeeshay waxaan go-aaminay mudaaharaadka soo socda annaga inaan hogaamino waktigiisa waa liisoo sheegaa meeshuu ka dhaca waa liisoo sheegaa dowladdana waxaa ka rajaynaynaa banaanbaxaas nabadda ah inay ogolaato wuxuu ka dhibaa lama arko waxaa la cabirayaa dareen ku aadan doorasho laysla ogol yahay oo dadku ku wada qanacsan yihiin inay dhacdo si loo helo cidda ka soo baxdaa cid la ogol yahay sidii maxamed cabdulaahi farmaajo 2017 loo ogolaadoo kale qofkii ka soo baxa in la ogolaadaan rabnaa mudaaharaadkaas annagaa hogaaminayno horkacayno waana la soo sheegi doonaa meel kastoo warbaahinta ka midana waa ku soo sheegaynaa